garaadada gobolka Sool oo dhamaantood ka qaxay magaalada Laascaanood ayadoo ay u kala carareen magaalooyinka Nairobi, Muqdisho iyo Garowe siday noo sheegeen ilo xog ogaal ah inay garaadada gobolka Sool baneeyaan Laascaanood ayaa timid kadib markii ay Somaliland geysay talisyadeeda ciidan ee kala dambeeya ee og ilaa Gooja Cadde iyo Maraaga ciidan cusub oo wata sanad military oo dhameystiran kuwaas oo saacad walba qabsan kara magaalada Laascaanood sidoo kale maalmihii la soo dhaafay waxa ka socday furimaha hore ee dagaalka Laascaanood abaabul ciidan oo xoog leh oo ay ka warqabeen garaadada gobolka Sool taasi oo sababtay inay garaadadu isaga baxaan magaalada Laascaanood iyadoo ay safar u kala aadeen magaalooyinka Nairobi, Muqdisho iyo Garowe oo ay aaminsan yihiin inay uga dhuuman karaan fashilka iyo guuldarrada ka soo gaartay dagaalka Laascaanood oo ay 6 bilood wadeen abaabul iyo kicin beeleed waxaana ay wararku sheegayaan inay isimada dhaqanka gobolka Sool iyo guddiga 33 xubnood ah go'aansadeen inay Laascaanood isaga baxaan intaysan Somaliland awood ciidan ku qabsan magaalada Laascaanood oo dhowr bilood ka maqnayd gacanta ciidanka Somaliland sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku guuleystay inuu soo xiro kanaalkii siyaasadeed ee beesha caalamka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Sool isku xirayay kaasi oo ahaa gudoomiyihii baarlamaanka Somaliland Cabdirasaaq Khaliif oo isaga horeelay siyaasadda Somaliland haddaba maxaa keenay xilligan inuu Cabdirasaaq Khaliif isaga tago jagada baarlamaanka Somaliland sidaad la socotaan maxkamadda sare ee Somaliland ayaa dhawaan warqad u qortay Cabdirasaaq Khaliif ayadoo fartay inuu 7 bari uga soo jawaabo warqadda loo qoray kuna yimaado magaalada Hargeysa intaas kadib Cabdirasaaq Khaliif oo aan tagi karin Hargeysa ayaa go'aansaday inuu isagu iska casilo xilka gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland intaysan Somaliland xilka qaadis ku samayn taasi oo dhacday sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo la filayay inuu gali doono khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya isaga iyo mucaaradkiisa ayaa halkaas ku dhamaaday kadib markii uu dhawaan gudoomiyaha xisbiga wadani sheegay inaan xilka laga qaadi karin Cabdirasaaq Khaliif oo isku xisbi ahaayeen laakiin taas bedelkeeda Cabdirasaaq Khaliif oo ogaa inuusan Cabdiraxmaan Ciro wax badan u tari karin ayaa isaga tegay jagada gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland sidoo kale waxaa la filayaa in maalmaha soo socda loo dhaarin doono xilka gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Yaasiin Faratoon oo ka tirsan xisbiga Kulmiye ee uu hogaamiyo madaxweyne Biixi waxaana ay tani fursad siyaasadeed iyo dardar hor leh siinaysaa madaxweynaha Somaliland oo isagu haatan gacanta ku dhigay dhammaan awoodihii waaweynaa ee Somaliland taasi oo ka yareynaysa cadaadiska beesha caalamka waxaana muuqata inuu madaxweyne Biixi gaaray guul siyaasadeed intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Laascaanood